السلام عليكم. والله قرمت وحكولها الله يا محمد عبد الله فرماجو مدحوينها. waxa uu la hadlayaa madaxweynuhu ehelada wali baadi goobaya dadkoodii oo aanay hayn nolol iyo geeri halka ay ku dambeeyaan waxaana madaxweynuhu uu la hadlay mid isagoo la wadaagay sida uu uga xun yahay dibka ku dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa inta uu ku sugnaa xaruntan gurmad qaran waxa uu warbixin ka dhageysay dhalinyaradii isxilqaamay ee gurmadka horkacayay waxaan isku qaybinay 4 qaybood afartaas qaybood oo kala ah qolo IT ah oo u xil saaran soo aruurinta xogta iyo daatada dadka eheladooda weysan iyo dadka aan wali warbixino ka helin inay ay dhinteen dadkoodii inay nool yihiin sidoo kale warbixinada in social media la geliyo oo la soo bandhigo sawirradii dadka la laasan yahay nabad dadka nolosha lagu waayay iyo dadka aan wali geerida lagu heyninba sidoo kale waxaa jira qolo logistics ah oo fududeynaya dhammaan in wixii cunto iyo wixii tabarucaad halkan la keeno ee xarun u noqoto isla markaana la fududeeyo in loo qaado meelaha kale waxaa jira qolo ayagana ka shaqeynaya raashinka oo deeq ah xaleeto waxaan dhammaan isbitaalada ilaa 5 isbitaal geynay casho dhammaan bukaanada ku jira madaxweynaha ayaa ku amaanay dhalinyaradaas doorka gurmadka ay ka qaateen isagoo sheegay in loo baahan yahay in si midaysan loola dagaalamo kooxdan sidan u gumaaday shacabka ee al-shabaab dhiiga ku bixiyay inay dadka waalahooda dhaawac ahaa shalay ay dhiiga siiyaan iyo idinka oo ilaa maalintii wax dhaceen u taagan habeen iyo maalin oo qaadaya dadka dhibaatada ku dhacday waalidiintooda iyo dadka maqan aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa shabaabna waxay u socdaan dalkan inay tirtiraan waxay u socdaan sida ay daraad sameeyeen inay tirtiraan shacabka Soomaaliyeed waa cadowga shacabka Soomaaliyeed waxay u socdaan mustaqbalkiina inay baabi'iyaan waxay u socdaan dalkan inay ka dhigaan dawlad la'aan oo adduunku naga cararo oo aan noqono bahalgaleen mana ka yeelino dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tagay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho isagoo gudaha u galay diyaaradii lagu qaadayay dhaawacii ka dhashay qaraxii kooxda al-shabaab ay ku laayeen shacabka Soomaaliyeed waxaana uu sagootiyay dhaawacyadaas oo qaarkood uu wax ka saaray diyaaradda kuwaas oo ay ku jireen caruur yaryar waxaana uu mahad celiyay dawladda Turkiga oo uu sheegay inaanay marnaba ilaabi doonin taageerada ay la garab istaageen shacabka Soomaaliyeed Turkigu waxa uu Soomaaliya u muujiyay saaxiibtinimo adag waana dalkii ugu horeeyay ee sida arkaysaan hadda dhaawacyadii ku dhacay qaraxii Soobe halkan ka daabulaya waana arrin runtii Soomaalida taariikh iyo saaxiibtinimo gaar ah ku reebi doonta labada shacab ee Soomaaliya iyo Turkiga wasiirka caafimaadka dalka Turkiga ayaa ka sokow tacsi uu ka siday madaxweynaha iyo shacabka Turkiga waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay la qaybsanayaan xanuunka soo gaaray dhaawacyada ay u qaadeen dalkooda ayuu sheegay inuu halkaas ku booqan doono madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan Somali halkına Türkiye halkı waxaan maanta halkaan u yimid inaan idin soo gudbiyo tacsiyada madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Turkiga Bilal Yildirim iyo shacabka Turkiga tacsiyadooda inaan idin soo gudbiyo ayaan halkaan u yimid maanta walaalaheen Soomaalida caawimaadooda iyo garab istaagooda haddii ay dhacdo arrintan foosha xun ee arxan darrada ah waan u imaan lahayn markasta haddii qof walaalkeena ay qodax muddo waan la xanuunsanaynaa waan la murugoonaynaa markasta waana idin garab taaganahay Turkigu waxa uu Soomaaliya ka caawiyay dhinacyo badan muddo sanado ah Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho